nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta xilli walba goor walba iyo weliba waqti walba oo aad adigu jeceshahay magacaygu waa Shiine Gestir waxaan weli ku guda jirnaa barashada xisaabta jajabta waxaan caawa video gaaban aan ku baranaynaa mixed fractions jajab dhafan waxaan si khaas ah ugu baranaynaa isku dhufashada jajabta dhafan sida la iskugu dhufto jajabta dhafan waxaana la yiraahdaa isku dhufo jajabyada dhafan ee hoos kaaga muuqda waxaa halkan nooga muuqda jajabyo dhafan oo aan rabno inaan isku dhufano daawade marka la isku dhufanayo jajabyada dhafan marka koowaad waxaa la sameeyaa tirooyinkan dhafan ama jajabyada dhafan ayaa waxaa loo bedelaa jajabyo maqumana ah kadibna markaad jajabyada dhafan aad u bedeshid jajabyo maqumanaha ah ayaa waxaad isku dhufanaysaa jajabyada maqumanaha ah jawaabta kaaga soo baxda markaad isku dhufatid jajabyada maqumanaha ah ayaa waxaad haddana aad u bedeli jajabyo dhafan markaas ayaa waxaad soo heshay jawaabtii aad raadinaysid balaan sameyno marka koowaad jajabyadan ayaa waxaan u bedelaynaa jajabyo maqumana ah waxaan dhahaynaa marka loo bedelayo jajabyada dhafan jajabyo maqumanaha ah waxaa la soo qaataa marka koowaad tirada hooseeyaha ah oo aan laga dhigtaa hooseeye saddexdaba soo qaadan markaa kadib saddexda waxaad ku dhufanaysaa labo waxay la mid tahay lixna waxaad ku dari hal waxay la mid tahay markaa 7 markaasa waxaad soo qaadan calaamadan ku dhufashada ah markaasaa dhihi lagu dhuftay haddana tan kale ayaad u bedeli improper fraction ama jajab maqumana ah waxaan dhahnay marka koowaad waxaa la soo qaataa hooseeyaha waxaan dhahaynaa 5 markaa kadib 5ta waxaan ku dhufanaynaa 4ta oo ah tirada idil 5 lagu dhuftay 4 waxa weeyaan 20 kadibna waxaan ku daraynaa 1 waa 22 sidaas ayaa waxaan uga dhignay improper fraction ama jajabyo maqumane ah markaa kadib ayaa waxaan isku dhufanaynaa jajabyadan halka nooga muuqda ee ah jajabyo maqumane ah marka la isku dhufanayo jajabyada waxaan soo baranay in la isku dhufto hooseeyaasha kadibna la isku dhufto sareeyaasha waxaan dhahaynaa marka 3 lagu dhuftay 5 waxay la mid tahay 15 marka kadibna waxaan dhahaynaa 7 lagu dhuftay 21 waxay la mid tahay 147 haddii aad rabtid daawade waan sii yaray karnaayo waxaan dhahaynaa dhan walba waxaan u qaybinaynaa 3 qoladana waxaan u qaybinaynaa 3 147 loo qaybiyo 3 waa 49 kadibna 15 loo qaybiyo 3na waa 5 waxaan soo helnay 7 saddexaad lagu dhuftay 21 shanaad inay la mid tahay 49 shanaad halkan markaad joogtid ayaad waxaad u bedeli jajabtan improper fractionta ah mixed fraction si aad u soo heshid jawaabtaadii waxaana soo baranay marka improper fraction la rabo in laga dhigo mixed fraction ama jajab maqumana ah marka la rabo in laga dhigo jajabyo dhafan inaad muhiim tahay inaad taqaanid xisaabta isku qaybinta waxaan dhahaynaa marka 49 loo qaybiyey 5 waa imisa tirada 5 lagu dhufto ee 49 keenta ama u soo dhaweysa waa tiradee waxaan dhahaynaa waa 9 lagu dhuftay 5 waxay keentaa 45 49 laga jaray 45na waxa weeyaan 4 waxaan ognahay marka oo aan soo baranay tiradan halkan taala inay tahay tira idil markaan rabno inaan u qorno sida tirooyinka mixedka ah waxaan dhahaynaa tiradan waa tira idil mar walba inaa intaa xasuustid waa muhiim tiradana waxay tahay tirada hooseeyaha ah hooseeye tiradan waxay noqonaysaa sareeye sidaa darteed waxaan dhahaynaa marka 9 oo ah tira idil 4 oo ah sareeye 4 5 oo ah hooseeye 9 4 shanaad marka waxaan dhahaynaa 2 hal saddexaad
labo hal saddexaad lagu dhuftay afar hal shanaad waxay la mid tahay 9 afar shanaad. sidaas ayaa daawada waxaa la iskugu dhuftaa tirooyinka dhafan. marka koowaad tirooyinka dhafan aad haysatid ayaa waxaa loo bedelaa mid walba improper fraction. kadib improper fractionkaas ayaad isku dhufanaysaa, jawaabta kaaga soo baxda ayaa waxaad u bedelaysaa mixed fraction. markaad mixed fraction u bedeshid ayaa waxaad soo heshay jawaabtaadii. waa very simple laakiin waa yar process yar dheer.